السلام الله عليكم دمان ardayda sharafta leh ku soo dhawaada cashirkeeni labaad ee Microsoft Access ka buugeeni afraad cashirka maanta aan arkaynaa waxa weeye purchased items wasada alaab soo iibsan lahayd bill name iyo data type okay shaqadeena ay bilowno markaa waxaan tagayaa halkan office buttonka new baan leeyahay kadib maxaan leeyahay blank database xagana waxaan markaa u bixinayaa shirkadeeda magaceedii waxaan leeyahay aleel create baan leeyahay shirkadan aleel la sameeyay sidii hore soo sheegay table halkan ku yaala wad iska xidhaysaa adaa table soo samaysanaya create baa tagaysaa table design okay xageenu ka bilaabanaa markaan dib ugu noqdo qaybteeni waxaan ka bilaabayaa date and time baan ka dhigi doonaa waxaan ku xigsiinayaa vendor name waxaan ku xigsiinayaa item mid kastana data type-kiisa kuwaas ayaan dooran doonaa waayahay waxaan ugu horeysiinayaa date-kii aan sheegay hadda date-ka hortiisa muxuu ahaa date and time buu ahaa waxaan ku xijinayaa vendor name ku waxa weeye qolooyinka wax laga soo qaato weeye vendorku okay waayahay isagana waxaad ka dhigtaa text waxaan ku xijisiinayaa item-kii aan ka soo iibsanayay ama alaabtii aan ka soo iibsanayay isaguna waa text qt waa igu soo gaabani quantity-gayga number-na iga dhiga xagga hore oo waxaan u soo gaabsaday waa cadadkii unit cost ee oo ah qiimihii currency isagu waayo waxa ugu dambeeya total oo maxay ah okay marka wadartiisu geyntii weeyii totalkani close le markaa yes dheh kadibna maxaad u bixinaysaa waxaad u bixinaysaa sidaynu soo sheegnay purchased items dheh okay dheh ID wanaga hore soo sheegno waxa uu qabto isagana yes dheh ID primary keyga waa la ii sameeyay table-kayga kadibna create form u bedel waa kan maxaan taabanaynaa labada calaamadood finish date-kii ku bilow marka ciddii wax inaga aan ka soo iibsanay macnaha Omar baan ka soo iibsanay Omar company Omar waxaynu ka soo qaadanay bariiskaynu ka soo qaadanay trees waxay ahayd 340 kiish bay ahayd ala kiish waxa uu noogu taagnaa $20 okay totalkii qaacidadaynu ku soo saaray waan arkaynaa aan ka sii socdo horta alaab labaad soo geliyo date-kii soo gali marka leh way kadibna waxaan leeyahay qofkii aan ka soo qaatay shirkadii aan alaabta ka soo qaatay inda birta okay inda birta waxaan ka soo qaatay sonkortaan ka soo qaatay cadadkeedu waxa uu dhannaa 6,000 oo kiish waayahay ala kiish waxa uu igu taagnaa $25 waayahay totalkii soo baxaya meel bannaan baad istaagaysaa right click baad leedahay kadibna taas saddexaad waxa ku qoran design view baad ku jiidi doontaa okay date-kii vendor name-kii item-kii quantity-gii unit cost-gii totalkii ka ugu hooseeya masax markaa laba total baa ku yaala totalka dhinaca midigta xiga masax maxaad ku dul qoraysaa equal bracket baad furaysaa bracketada aad furaysaa kuwa b for ben ku xiga wax shifti ah la qaban markaa qty xid lagu dhuftay dheh sidaynu soo aragnay bracketkii fur unit cost-igu sida uu kugu qoran yahay qor qof walba haddii aad wax ka soo qalada marka dambena waa inaad u ekaysiisaa ka qaabka ugu qoran yahay kaas quantity-guna waa ka xarfo capital letter small letter way noqon karaa waxba dhibaato ma laha laakiin waxa ah xarfo inay iyaga isla noqdaan xid iyo isla markaa kan u sameynay total-keebu waa ka hoose okay waa ka total-keega hadda xabadaan soo geliyay xabad kale date-kii soo geliyay waayahay waxaan ka soo qaatay Amir company baan ka soo qaatay Amir waxaan ka soo qaatay daqiiqda aan ka soo qaatay waxay dhanayd 120 ka cala xabad waxa uu igu haystay $10 okay totalkii waa kaas soo bixi doona saan baad u wadaysaa markaa alaabtii totalkii wuxuu eegan doonaa oo quantity-ga wixii lagu qoro iyo wixii lagu qoro unit cost-ga labada un bisagu eegan doonaa waxba kama gelin waxa kale buuxinteeda iyo qoraal la'aanteeda hadda intaas oo dhawaan ka soo boodo soo markaysid isagu wuxuu eeganayaa wixii halka la isku qoro halka haddaan 30 ka dhigana uu bedeli way ka 120 haddaan halkaas 300 ka dhigana halkan uu bedeli oo ka 1200 haddaan xaggan bedelo aan ka dhigo maxay aan ka dhigo 8na 8dii uu ku dhufan oo ka okay date-kii soo gali alaabta hadda waxaan ka soo qaatay Haroon waxaan ka soo qaatay gas 300 buu ahaa 300 على 8 بيجو تاجنا وكان لعبتي سو صار توتالكي اوكي
haye hadda waxaan samaysanayaa maxay report baan u soo bedelayaa for example hadda waxa alaabtaan soo geliyay waa alaabtii shanaad laakiin ima muuqdaan afartii ka horeeyay mar walba ka dul joogtaa ku muuqanaya marka aad taagan tahay qaybtan formka report baan markaa u bedelaynaa report way saar labadii calaamadood finish leh reportkii waa kan la ii sameeyey si aan horey kusoo aragnay date-kii hash buu ka dhigay laakiin ta kale waa sax maxaa kaloo maqan laakiin kana maqan isaga totalkeenu usoo saaraynaa right click design view date u dhex jiid ilaa ay calaamadaasi kuu soo baxdo hadda ma ujeedaa calaamadaas ilaa ay calaamadda labada dhinac ujeedaa kuu soo baxdo ha qabanin markaad raadisada hesho qaba kadib saa u ballaadhi okay waxay naga maqan isaguna meesha ku qoran qaacidadii soo qaaday equal bracketkii fur qty bracketkii xidh shift plus 8 oo lagu dhuftaya bracketkii fur unit cost xidh bracketkii bracketada ku shaqeyn doontaa sidii aan sheegay waa kuwa b4 ben ku xiga weeyaan close baan idhi kadibna yes okay waa kan uu ii sameeyey reportka afuro reportkii uu ii sameeyey waa kan alaabtaydii maca totalkii uu ii soo raaciyey okay alaabtii sii wad marka alaabtii mise taagan tahay hadda afar bay taagan tahay okay alaabtii haddaan sii wadno aan idhaahno waxaan ka soo qaadanay Samaale company baynu ka soo qaadanay Samaale waxaynu ka soo qaadanay caanaynu ka soo qaadanay caanahan ka soo qaadanay waxay dhanayd 120 ala xabad muxuu ahaa 120 kaasi wuxuu ahaa $12 bay ahayd okay totalkii wakaa oo inaga hore ugu soo sheegnay sii wad hay alaabtii ilaa inta doonto ka gaarsii liiskina waa inuu kan ku biiraa marka kana shaqada uu qabanayo waa maxay waa laga soo akhriyaa shaqadii la qabtay kana shaqada uu qabanayo waa maxay waa la gelinayaa shaqadii hadda wixii la iibiyay ama wixii la soo iibsaday okay waxaan qorayaa shirkadii aan ka soo qaatay magaceeda waxaan ka soo qaatay markaa Somer General Trading waxaan ka soo qaatay waa malabkii quruuradaha malabkan ka soo qaatay tiradiisu waxay ahayd 500 quruuradood 500 quruuradood ala xabad waxay ugu taagnaayeen $2 iyo badh okay waa ka totalkii soo markaysid totalka automatic buu soo baxayaa ka sii soco kani markaa ma ku daba daray tii lixaad ma kuma daba darin macnaheedu uu furnaa weey isagoo saa u furan baad shaqadii ku daba dartay xabad kale ku daba daraya okay kani mar walba wuu ii sheegayaa sare ID-ga ama alaabta aan socdo waxa ay tahay waa yahay waxaan ka soo qaatay Al Jazeera waa yahay suuq baan ka soo qaatay Jazeera suuq waxaan ka soo qaatay laptop baan ka soo qaatay laptopyadan ka soo qaatay waxay ahaayeen 10 xabo 10 xabo ala xabad waxay ugu taagnayeen 275 waa yahay totalkiisu soo bixi doonaa qaabkaas soo bixi doonaa okay sii soco marka alaabtaadii laakiin kan muxuu ugu dari laayay marka alaabtaan soconaha aragna hadda date-kii marka soo geliso inoo sheegi doona alaabtii 8aad inagana wuxuu inoogu joogay alaabtii 5aad intaas oo dhan uu furnaa marka soo xidh kadibna dib u fur alaabtii saas uu kugu sheegi doona 7 alaabood ee la iibiyay ama la soo iibsaday purchase-ka ahaa la soo iibsaday waa kuwa dhamaantood halka kugu sameeysan okay adu marka dukaan leedahay dad baa macmiil u tahay wax ka soo qaadataa marka dukaankaagii joogtana dad baa macmiil ku ah oo adiga wax ka iibsada marka kuwa customer bay noqon doona adiga wax ka iibsada adiguna kuwan vendor bay ku yihiin waxaan ku darayaa hal xabo halka xabeen ku daray waxa weeye in kan la helo totalkiisa aan soo qurxiyo right click design view kan ku dhex jiid bold iga dhigde 14 iga dhigde soo xid yes okay qaabka loo qurxiyo soo markaysid waxaan rabaa inaan hal xabo ku daro subtotal waxa la kan in la isku geeyo isu geyntiisa right click design view okay halkan ay ku qoran tahay line kan ay report footer ku qoran tahay dheer soo markaysid qabo line-ka markay calaamadaasi ku soo baxdo hoos u jiid kadibna waxaad soo qaadataa text baga soo qaado halkan kaalay totalka la isku geynayaa axi halka aad jooga okay sanu jiid marka la sin totalka la sin okay saasa totalka la simay xagana waan ka yareysanaa isku totalkayga u leegaado ku dhex dhufo waxaad tiraahdaa equal sum shift plus 9 oo bracketkii weynaaya bracketkii b4 ban ku xigay fur marka qaacidadii caadigi bracketkii xidh lagu dhuftay dheh bracketkii fur unit cost bracketkii xidh shift plus ever oo bracketkii weynaa lagu soo xidhayo halkan marka maxaa loo bixinayaa iyada halkan waxa loo bixinayaa waxa uu qoraalkan yahay subtotal weeyaan baad leedahay subtotal isu geynta totalka weey okay
inoo qurxi markaa bold ka dhig fartiina 10 ka dhig xogaa dhexdana ii geedhe labada dhinac ha u dhaafo markaa qoraalku totalkaaga okay center ku dhigi doonaa marka okay kan leftirkiisana bold ka dhigdhe uu yahay xasaan iga dhigdhe center kana geedhe ama xaggan gees uu ugu dhawaado qoraalka kale okay xaggana markaa ka yareysanaysaa dad u baahato waan soo xidhayaa yes baan leeyahay hay hadda ii fur wakaa totalkaygii la isku soo geeyey laakiin waxa maqan calaamadda dollarkii right click design view ku dul dhufo okay si uu qaybtii xaggan kugu soo baxday haddan xidhayay right click baad leedahay kadibna maxaad ku jiidaysaa properties ka dooranaysaa u hooseeyay report footerkaagu marka uu kuu soo baxo halka format ku jiid waxaad dooranaysaa kii aad u sameynaysaa marka calaamadda kadibna formatdan hadda soo baxday horteeda baad dooranaysaa hal mar aan ku celiyo qaybtan markay kaa maqantay sida soo celinaysaa report footerkaagu right click waxaad dooranaysaa properties okay formatdan aad ku jiiday format baa ka hooseyn doontaa marka aad select ku yahay equation kaagu aad xisaabta isticmaalaysaa xaggan soo fur markaa currency ga dhigde close dheh yes dhahay fur hadda ka ugu hooseeya okay colorkiisa ma soo bedeli karaa hal mar ma isku dayaya halkii uu ku noqonaya ku dhex dhufo colorkiisa si maadaama uu total yahay ha iga duwanaado kuwa kale waka okay raqabkaas laga rabaa arday walba si taxadir leh insha Allah inaad u dhameystirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.